أنا كي جنة وتهي فيلم كي متشتي كي هرابات وكليني وهن دبرانك وها وشكهرا بسنة أنا حفلة لهن maalmihii la soo dhaafay waxaa si weyn baraha bulshada ee ay Soomaalidu ku wada xiriirto loogu baahiyay muuqaal si bini'aadanimada ka baxsan loogula dhaqmayo gabar shaqaale ah oo lagu tilmaamay inay tahay Itoobiyaan. muuqaalkan oo 11 daqiiqo ah ayaa haweenka Soomaaliga ah waxa ay gabadha ku qasbeen inay cunto rooti qalalan oo ay dhulka ugu tuureen kadib waxa ay ku amreen in rootiga ay ku cunto dambas arrintaas oo waxyeelo caafimaad gaarsiin kartay. haweenka labada ah ayaa garaac iyo aflagaado xun isugu daray gabadha oo u muuqatay mid ku nool xaalad gumeysi oo kala ah. mid ka mid ah gabdhahaas ayaa la maqlayay iyadoo gabdhaha jaariyada ah ku qasbaysa inay xirato waji xirka iyadoo sheegtay inay ka baqayso in la xiro. haddaba muuqaalkaas oo saameyn weyn ku yeeshay baraha bulshada ay Soomaalida isticmaasho waxa hadda ka dambeeyay muuqaal kale oo ay soo duubeen hablahaasi iyagoo sheegaya waxa ay sameynayeen inay ahayd arin branki ah oo ay Soomaalida ku sameynayeen. waxaana meesha fadhiya gabdho isku tilmaamay inay ahaayeen kuwii falka ku kacay iyo gabadh ayadu sheegtay inay ahayd gabadhii falka lagu sameeyay waxayna tilmaantay arintu inay ahayd mid baranki ah iyaduna ay tahay gabar Soomaaliyeed oo ina ahayn gabar Itoobiyana. haddaba daawo muuqaalkan oo haddana la yaab kale ku noqday ummadii daawatay oo xitaa marka loo eego dhacdooyinkii meesha ka dhacay in xitaa ayna macquul ahayn si baranki ahaan qof bini'aadan loogu sameeyo. waxaan duubayna xasayaa haayeen anuska baraak naga hay inaad jannada waasan welcome channel magacaaga runta u sheeg horta magacay runta xagga ma iga sheegayna ani kii janno u tahay filimkii mintistay kii haraabad uu ka dhigay waxaan debrank waha washkahara bisanine aniga xafladu lahayn xafladii markuu lahayn intii hunkii wala soo gaatay لكن انت في عنك مسوق على دمان اصحابته وحنين هيا كانوا نفس مارجا قاعد جها اوكي انا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته دمان اصحابته السلاميه ملك استاذن في جوجل انا جو حامل كده سمعني براك عيونها ام بحراويسي انا حفلت لها يعني انا اسكت على السنين اسكت ضدونا وحياواس تدكني وحكي قاتل طيبه maanta astaamahaygi waa kaas farahaygi gigiraha liikali runtii aniga waxaan gigiraha ku sameynay ma cuneyni markaas saxaabtu waxaad u sheegaysaa wax kasta inay prank haayeen adiguna inaad oroma ahayn jilliin baad tahay hay najma axmed yusuf gabadhii sida arxan darada gabadha ula hadlaysay waa tan maxaa leedahay najma hore jilliinkna sameeyay yaracay intii jilliinka ku tur ilaahi waa sinaysa walaal so saas jilliin bay ahayd wadinka arkaya sheegna dhamaan maanta shilka inta dadka badankooda arkayna wuxuu been yahay laakiin dad baa jira xumaan raadisa soo dani kiimika hawshooda watay dad badan oo isku ninka waan haysanaa ninka waan lahaa dadka dad waaweyn been ka sheegay oo lahaa